السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن maanta waxaan rabaa inaan wax yar iskala sheekeysano faa'iidada ay leedahay markuu qofka leeyahay xuduud iyo meel xirta ama maaragtay soohtimo uu leeyahay faa'iidada qofka ay u leedahay ayaan rabaa maanta insha Allah inaan wax yar iskala sheekeysano ilaahay wadada ogolaado. Xuduud waa markuu qofka og yahay ama kala garanaya waxa u qalma naftiisa iyo waxaan u qalmin, waxa uu maaragtay sida uu rabo inay uga dhaqmaan dadka noloshiisa ku jira, sida dadka isla shaqeeyaan, asxaabtiisa, saaxiibadiisa, lamaanaha, ehelka, dadkaasoo dhan bini'aadanka sidiisaba way kala duwan yihiin. qofka bini'aadanka sida kuula dhaqmaya adi wuxuu kama qaban kartid markuu hore, yani waxan uu rabo kugu sameynayo kale wax kama qaban kartid, laakiin waxaa authority buuxa u leedahay respondkaaga iyo ka falcelintii ayaad u leedahay. markaad tahay qof xuduud leh oo naftiisa ixtiraamay oo karaameeyay oo u sameeyay xuduud naftiisa, markaad tahay waxaa kuu fududaanayso qofkaas inaad ka hortagtid oo markuu qofka fal kuula kaca aadan jeclaysanin oo ka hor imaanaya wax emotionkaagii iyo beliefkaaga wax aad aaminsantahay ka hor imaanaya, markuu kula kaco waxaa kuu fududaanaysa inaad qofka joojin kartid oo dhihi kartid walaal waad soo dhaaftay xadkaagii, meeshan adi ma lihid, taasna ani nafteeda uma qaadaya inaad dhihi kartid aa kuu fududaanayso. marka dad badan oo naga mid ah waxay la dhiban yihiin bini'aadan kala dhibaatooyin ay ku hayaan oo ay ka mid tahay qofaa maaragtay waxaa dhibaysaba inuu dhaho maya ma dhihi karo because dadka qaar waxaa waaye sida lagu soo koriyey walaalkaa ka weyn waxaan u keen maxaa la dhihi jiray waxaan sameeya si qofka loo lahaa, qofka inuu maya dhahaba ku adkaanaysaba oo wax walba marka iska qaadanaya. wuxuu leeyahay hebel maa niyada ka jebin kartaa, hebel maa maya dhihi kartaa, hebel maa waxaas ma keenaya ma ku siinaya aa dhihi kartaa. marka waxaa dadka u sahlaysaa inay bini'aadankii ku isticmaalaan more oo markay ogaadaan weak pointigaaga, bini'aadankana saasay iskaga badan yihiin, weak pointigaaga markay ogaadaan intooda badan waxay sameeyaan inay ku isticmaalaan. marka si ay taas kugu dhicin waxaa u baahan tahay inaad xuduudo samaysatid. xuduudaas markii qofka uu soo gudbana aad dhihi kartid waad soo dhaaftay xadkaagii, indhaha farahaaga gelin aad dhihi kartid aad maaragta u fiican. haddaba qofka markuu samaysto xuduudo asaga u gooni ah muxuu ka faa'iidayaa? waxaa baranaysaa inaad maya dhahdid, sidaas hore soo sheegnay mayadaa kuu fududaanayso inuu qofka maya wax diido, inuu wax diido waxna yeelo oo naftiisa uu xur u noqdo ayaa aad kugu fududaanaysa. waxaa noqonaysaa qof xur ah oo waxna diida waxna yeeli kara. maxaa dhihi jiray waxaad qaadi karin ma soo qaadanaysid oo naftaada u qaadi karin ma soo qaadanaysid. waxaa kaa yaraanayso inay dadkii dhahaan ballanku beenaalaa tahay, ballanaa noo qaaday mana kasoo bixin, waxaasoo dhanaa kaa haraaya. waxaa noqonaysaa qof qawi ah oo wax diidi kara waxna yeeli kara, waxaas walaal aan hadda ma sameyn kari. marka waxaa noqonaysaa qof qawi ah oo hadalkiisa uu cad yahay oo meel loogu soo hagaaga leh oo weji looga imaado leh ayaa noqonaysaa. waxaa kaa yaraanaya welwelka badan iyo negativekii badnaayo naftaada u sheegaysa way kaa yaraanayaan. waxaad isdhehaysaa ani go-aankan qaato wuu saxsanaa, naftayda ma aragtay waxaan u qalmin uma soo qaadin, waxaas welwelkii dhanaa kaa yaraanaya. iyo hebel haddaa maya dhahdid muxuu dareemayaa, waxaasoo dhan meesha way ka baxayaan. waxaa noqonaysaa qof maya dhahay, go-aankiisana cad yahay, dadkana ay maaragta ku tixgeliyaan aa noqonaysaa. waxaa noqonaysaa qof ixtiraama dadka kale xuduudahooda oo markuu qof kale adina maya kugu dhaho midii hore waxaa laga yaabaa in qof hadduu maya kugu dhaho aa qaracmi jirto oo dhihi jirto anigaba dadka wax walba oo u sameeyaa, anigaba wixii la weydiiyey maya ma dhihi, way ay dadka maya ii dhahayaan inaad dhihi jirtaa laga yaabaa. laakiin hadda waxaa ku fududaanayso oo aa aqbalaysaa inay dadka adoo kale yihiin, bini'aadan yihiin, xuduudo leeyihiin, waxna diidi karaan waxna yeeli karaan. soo marka waad ixtiraamaysaa adigoo happy ah oo qalbiga ka faraxsan ayaad dadkina ixtiraamaysaa,
xuduudahoodii u ixtiraamaysaa. waxaad dareemi doontaa kalsooni aada u fara badan oo naftaadii self esteemkaaga kor u kici doona. waxaad noqonaysaa qof koray oo korsan oo hadeeta qof bil-aadan ah oo maaragtay dadkana ixtiraamo lana ixtiraamo oo sharaf leh oo karaamo leh ayaa noqonaysaa. waxaa kaa yaraanaya wixii maaragtay drama ahaa, dadkii ee buuqa kula soo dooni jiray dhan way kaa yaraanayaan oo waxaa noqonaysaa qof usoo haraan dad yaroo xul ah oo naftiisana ku qanacsan kana raalli ah go-aamada u qaatayna ku ixtiraama ayaa kusoo hari doona. marka waxaa adag, waxaan kusoo gabagabeynayaa waxaa aada u adag qofka inuu sameysto xuduudahan. aaday u adag tahay. waxa adkeynayan wax kale ma ahe, wax kasta waxay rabaan inaad la qabsatid, inaad bilaawdid, inaad ku celcelisid, inaad adiga meel la fariisatid. for example waxaa kugu adag inaad maya dhahdid, waa inaad qortid, waa inaad meel fariisatid, qortid, dhahdid aniga mayaan rabaa inaan ka shaqeeyo, inaan dhaho dadka maya inaan ka shaqeeyaa rabaa. marka waa qoranaysaa maxaa waaye dadkan aa maya dhahaysid, yaa targetkaaga ah, yaa rabtaa inaad maya ku dhahdid, intee maaragta ka bilaabaysaa. markaas iyada inaad qalin igu qaadatid, fariisatid, qoratid rabitaankaaga, go-aankaaga inay kaa go-an tahay waa inaad qoratid, nen aad ku dhaqaaqdid insha allah. waxaa noo balan ah guul iyo gobonimo. aadna waa idin salaamaya. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.